Mukhtaar Cabdulaahi Afgooye oo ka mid ah ciyaaryahanada Soomaaliyeed ee dadaalka wanaagsan ka sameeyay qaaradda Yurub iyo wadamada Carabta ayaa iminka waqti wanaagsan la qaadanaya xulka wadanka Sacuudi Carabiya iyo kooxda Al Nassr. Laacib Mukhtaar heerka uu ka gaaray kubadda cagta waxaa ku daysada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha wadanka iyo dibadda. Heerka uu maanta joogo iyo halkii uu ka soo bilaabay xirfadan waxaa sharaxaad inaga siinaya aabaha dhalay laacib Mukhtaar علي شيخ عبد الله علي أفجوي. مختار وحو عياري ودنك إنجليزكا عند 17 كأديك لحي تونجردا يتضوي تونجردا يسديد تونجردا كوحدة مركو عياري وحو جوي كوحدة تشيلسي يوث كاب كا أو ماركتي أما دلنيردا إلا أفر كوبل لقاضي وحو كلو لقاضي عيارها لو مر أو تشامبيون ليج يوث تشامبيون ليج الله koox walba oo Champions League gasho waxay leedahay kooxdeeda youth-ka ah ama under 19-ka ah in ay la ciyaaraan kooxda oo liigaas oo la sameeyay in lagu daro waxay la ciyaareen koobkii ay Paris Saint-Germain oo Champions League ay ka qaadeen marka kooxdiisa markuu tagayna kooxda Vitesse Arnhem isla sanadkaas wuxuu la qaaday koobka waxay u kala baxaan laba koobka sida Premier League oo kale iyo koob oo la dhahay Carling Cup ama koobka ku xigo wadanka markaas FA Cup-ka marka koobkaas uu la qaaday isla sanadkii uu loonka ku ahaa wuxuu ku biiray kooxda Al Nassrna wuxuu la qaaday koobkii Super King Cup. Sharaf weyn ayay ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskayga u tahay in wiilkayga Mukhtaar uu magac iyo heer sare ka sameeyo ciyaaraha caalamka waxaana heerka iminka uu joogo laacib Mukhtaar ay dhiirigelin u noqonaysaa dhalinyarada kale ee jecel mihnadan sida uu goobjoog u sheegay mar kale aabaha dhalay xirfadyahan Mukhtaar. Haddaad mar oo ciyaaraysid muntaqab ama wadan oo ciyaaraysid waxaa kor u kacaya CV-gaaga iyo experience-ga ama aqoonta aad football-ka gaari doonto sababtoo ah aniga waxay ii tahay farxad Soomaali oo meel kasta ay joogaan waxaan ogahay inay ku faraxsan yihiin meel kasta ay joogaan asagana waxay u tahay guul oo soo hooyatay Soomaali meel kasta ay joogto qaasatan asaga Mukhtaar ahaan waxay u tahay guul oo maaragtay oo weyn inuu gaaray way sababtoo ah national team-ka hadda mar oo ciyaartid waxa tahay qof oo adduunka laga yaqaano. xirfadyahan Mukhtaar Afgooye waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in isaga iyo saaxiibadii ay soo booqdaan dalka iyo inay la kulmaan xidigaha ka dheelay Soomaaliya balse waqtigooda sanadka oo dhan uu yahay mid mashquul ah laakiin mar isaga iyo saaxiibadii ay imaan doonaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka. runtii aad iyo aad maaragtay uu jecel yahay asaga inuu imaado wadanka oo waliba kaligiis imaano oo ay la imaadaan ciyaartooy badan oo saaxiibadiisa ah laakiin waqtiga aad u yar sanadkii wuxuu leeyahay fasax 20 biri ah 20kaas biri waxay u haystaanba ayaga inay tahay 20 bilood waayo 20 biri ma aadi kartid meesha rabtid laakiin fasaxiisa aad u yar laakiin insha Allah fasax fiican markuu helo wadanka inuu imaado asaga iyo ciyaartooy badanba oo Soomaali ah iyo Afrikaan ah iyo wax kale ah ciyaartooy badan ayaa rabeen inay imaadaan sanadkii hore wadanka inay imaadaan oo ciyaartooyda Soomaalida ay arkaan siday u ciyaarayaan ay arkaan marka nin kastana wadankiisa waa ku faanaa wadankiisa uu jecel yahay. sanadihii la soo dhaafay waxaa garoomada waaweyn ee kubadda cagta caalamka lagu arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo u ciyaaraya naadiyada kala duwan ee ka dhisan qaaradda Yurub iyo wadamada Carabta. aabaha dhalay ciyaaryahan Mukhtaar ayaa waalidiinta Soomaaliyeed u soo jeediyay inay carruurtooda ku dhiirigeliyaan noocyada kala duwan ee ciyaaraha. waxaa jirto ciyaartooy fara badan oo yar oo oo ka soo bilaabo 8 sano ilaa 16 sano hadda ciyaartooy badan waxa laga yaabaa sanadaha soo socdo inay Soomaali badan ka soo baxdo oo kooxaha Premier League iyo kooxaha Champions League ciyaaro iyo kooxaha Europe hadda waxaan ogahay Sweden, Norway, Finland, Holland inay dhalinyaro badan hadda oo ciyaaraan kooxaha oo Soomaali ah marka Soomaalida marka hadda waxay u soo jeesteen inay waalidiinta ta garab siiyaan wiilashooda marka anoo fursadan ka faa'iideysanayo waalid kasto joogo oo Europe joogo qurbaha joogo Soomaali joogo meel kasta joogo ina unugan haduu jecel yahay sportiska nooc kasta uu noqdo in ilmaha loogu celiyo balwada iyo dhibaatada iyo fakarka
waayo cunugaaga haddaadan wuxuu jecel yahay oo cayaaraha ku saabsan sports ku saabsan haddaadan garab ku siinin wuxuu samaysanaa shaqo kale. si kastaba 23 jirada Sacuudi Carabiya ayaa bisha koowaad ee Janaayo 2020 soo tiigsaday kama dambaysta tartanka Asian Championship inkastoo fiinalaha ay guuldaro kala kulmeen xulka South Korea wuxuuna ciyaaryahan Mukhtaar ka mid ahaa ciyaartoydii dadaalka wanaagsan sameeyay intii uu socday tartanka.